Moobiladeenna smartiga ah iyo kombiyuutaradeenna waxaynu ku isticmaalnaa wax walba, laakiin run ahaantii waxay ku dhisan yihiin wax la yidhaahdo codes. Codeskaas oo ka koobma kumanaan kun oo nooc. Waxaa jirta kumanaan iyaguna languages ama luqado oo lagu dhiso codad. Codadkaasoo iyaguna sahla in lagu aasaaso applicationno. Laakiin innaga qaybtan hore noo muuqataa interface-kan hore waa mid ka dhalata natiijada codeka languageska kala duwan lagu programmeyay. Waxay u shaqeeyaan haddaba codadkani qaab ah in input la soo geliyo wax codad haynaya muuqaalka adiga ku soo baxaya natiijada aakhirka ku soo baxaysana ay noqoto output. Waxaa kaloo lagu dhisaa codadkan website-yada kala duwan iyadoo oo languages kala duwan loo kala isticmaalo. JavaScript, Python iyo weliba Java oo iyaguna badanka lagu dhiso web applicationska. C++ oo iyaduna wax kasta badanka waxyaalo fara badan lagu dhiso sida web applicationska, desktop applicationska iyo gamemka. Waxaa kaloo soo raacaya iyaguna applicationska moobilada aynu ku isticmaalno. Luqadahan HTML iyo CSS iyadana waxaa lagu dhisaa mid waxay qabataa structure-ka iyo qaabka guud ee dhismaha, midna waxay samaysaa design-nadii iyo appearance-ga muuqaalka qurxintiisa oo waxaynu odhan karnaa waa design. Waxaa soo raaca programming language markaynu ka hadlayno. Waxaa jira luqado aad u fara badan oo kumanaan kun gaaraya kuwaasoo mid walba uu shaqo gaar ah haddaba u samaysto. Waxay ku xidhan tahay qof walba nooca uu doonayo iyo weliba different-yo kala duwan iyagoo si kala duwan u kala shaqeeya. Qof walba run ahaantii luqadiisa uu doonayo waxa uu u baahan yahay inuu kala doorto sida u dhisaan ayay ku xidhan tahay. Tusaale ahaan haddaynu soo qaadano baabuurta. Baabuurtu way kala duwan yihiin, wayna kala noocyo duwan yihiin. Aad ayay u dhiseen kala duwan yihiin. Qaar baa yaryar, qaar baa dhaadheer, qaar baa waaweyn, qaar baa waxaa loo isticmaalaa speed-koodu aad u sareeyaan. Kuwa mootooyin baa iyaguna jira. Qofba qof siba ayuu isticmaalaa. Baabuur waaweyn iyaguna waxaa jira sida kuwa kale waxay kaga duwan yihiin xamuulka iyo in alaabta culus lagu qaato. Kuwa kaloo kaba sii culusna way jiraan oo ciidda iyo saxaraha lagu maro. Haddaba haddaynu intoodaba isu soo barbar dhigno, qofba ka uu doonayo ayuu qaataa. Hadduu mid doonayo inuu mooto qaato, mid baabuur dheereeya, mid gaabiya, mid buuraha ka jibaaxa, mid rakaabka iyo alaabta badan u qaada, isaga ayay ku xidhantaa. Sidaas la eg ayay u shaqeeyaan programming languagesku. Haddaad tahay web developer, qof website-da sameeya, JavaScript ayaad ku dooran kartaa maadaama ay la shaqeyso HTML. Hadday tahay game designer haddii aad tahay, C++ ayaad ku dooran kartaa. Waa iyada ayaa complex graphics leh oo graphic-geedu muuqeedu aad u wanaagsan yahay. Hadday markaa aad soo samaysano tusaalaha muuqaalka hadda korkaa ka muuqda applicationada desktop-ka iyo kombiyuutarada lagu isticmaalayo kuwa moobiladu waxaa ka dambeeya run ahaantii codad aad u tiro badan, laakiin codadkaasi maaha iyagu waxa inoo muuqda. Run ahaantii codadkaasuna waa laf-dhabarta applicationadani ay ku shaqeynayaan. Waxaynu muuqaalkan kooban aynu ku soo eegaynay qaabka programming language-ku kala duwan ay u shaqeeyaan inagoo tusaale video iyo sawiraba isfahansiinay. Muuqaalka xigeentan idinkaga imanayno waxaan idinkaga tegaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.